anigoo cabdirasaaq xareed xuseen ka mid ahaa guddiga ay sameeyeen golaha isbeddeldoonka guddiga doorashada ay sameeyeen golaha isbeddeldoonka maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bisha 8aad waxaan miidiyaha iyo ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka reer Jubbaland u cadeynayaa inaan iska casilay xubinnimadii guddigaas sababta aan isku casilayna waxa weeye maadaama uu buuq badan iyo mataas qabsi badan uu jiro anoo u daneynaya amniga deegaanka iyo dalka aan doonayn inaan qayb ka noqdo wax fawdo ah oo dalka iyo deegaanka khatar ku ah sababta sida darteed ayaa isaga casilay waana go'aan shakhsi ah oo aniga aan qaatay cid u khasabtay iyo cid mutaqaana dal ku roonyahay culays ugu saartayna ma jirto waa go'aan anigu aan qaatay sidoo kale waxaan rabaa inaan miidiyaha iyo bulshadaba xasuusiyo in guddigaas la abuuray taariikh 8 bisha 8aad 19ka anigana guddigaas waxaan ka tanaasulay taariikh 9 aniga oo ogeysiiyey ninkii gudoomiyaha oo ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada saaxiibkay Mr. Abi iyo saaxiibadeydii kale dhammaantood anigoo ogeysiiyey ayaan go'aan ku qaatay inaan ka tanaasulo intaas waxa dheer inaanan xildhibaanadii dambe oo la xulayay iyo dhaarintoodii iyo hawlihii dambe oo dhammaan uu guddigu qabtay anigu markaas xubin kama ahayn doorna kuma aanan lahayn bannaan joog baan ka ahaa anigu waa Saciid Salaad Maxamed halkan waxaan ku cadeynayaa war ilaa xalay baraha bulshada iyo Facebook yaacay oo ah been abuur sida ogtihiin TV-ga Jubbaland indhoweyd waxa la xuliyay xildhibaanada Jubbaland doorashooyin baa ka socday guddi doorashada jira odayaal qaban qaabada xildhibaanada soo xuliyay baa jiray marka xalay waxaan ogeyn in lagu dhawaaqay golihii xildhibaanada la soo xulay si sharci ah sidoo kale waxaan aragnay qolyo kale oo iyaguna Facebook xildhibaan ka magacaabay sidaa daraadeed waxaan ka mid ahaa anigu xildhibaanadii Facebook laga magacaabay run ahaantii waa nasiib darro aad u weyn qof ma garanaysaa aadan aqoon qof aadan ma garanaysaa kula socon xiriir kula lahayn inaa Facebook iskaga magacaabato oo masabidato waa wax aad iyo aad nasiib darro u ah marka anigoo ah Saciid Salaad Maxamed waxaan halkan ka cadeynayaa in aanan ka mid ahayn xildhibaanada Facebook laga magacaabay oo lagu dhawaaqay waxaan kaloo boorinayaa Jubbaland waxa ka jirta nabad waxaan hay dhalinyarada aqoon-yahanka oo dhalinyarada aqoon-yahanka wax ku bartay Jubbaland jaamacadaha kaga baxay waxaan jeclahay horumarkeeda waxaan jeclahay barwaaqadeeda anigoo aqoon-yahankii dhalinyaradii ah inaan waxa weeye musuqmaasuq iyo qalalaasa ka shaqeeyo marna caqliga fiyo ma yeelayo marka waxaan leeyahay kuwa ma garanaysaa dadka Facebook ka magacaabana waxa iskaga waantoobo hadda wax isku haysaan miiska doorashada imaado ma garanaysaa marka calafkiina halka ka qaada laakiin dad guryahoodii hurda ina waxa weeye iskaga magacaabataan waa nasiib darro aad u weyn Jubbaland hore u socoto baan leeyahay anagu Jubbaland waxaan rabnaa horumarkeeda xigmad baa waxay leedahay dawladdu dadka meesha ku nool mushaar ma siiso ama wax ma wada siiso laakiin dadka waxay abuurtaa jawi dadku ay qof walba danihiisa uu ku gaari karo marka qof walbaaba inuu ma garanaysaa ka mid noqdo dawladda waxa uga fiican inuu qofku wax abuurto oo jawiga nabadgelyada wax ka abuurto oo horumar ku sameeyo marka dhalinyarada Jubbaland oo aqoon-yahankana waxa ugu baaqaya in laga shaqeeyo xagga horumarka nabadgelyada iyo wadajirka dadka wadajirka wax lagu yahay waxa weeye xil ma wada helayno laakiin waxa weeye nabadana wada deeqda iyo horumarka dhamaantiina wayni mahad celinayaa magaciidu waxa la yiraahdaa Cali Barra Cumar Cali Barra Saab oo gobolkan Jubbada Hoose looga yaqaano waxgaradka Jubbaland ka tirsan halkan waxaan u yimid maanta inaan ka cadeeyo arrin liiga been abuurtay in sadawaadkan hadda dhexdiisa lagu soo qoray xildhibaan Jubbaland oo qolooyinkan isbedel doonka sheegtay ay ugu soo qoreen
anigoo gurigeyga joogo oo amuuraha waxba kala soconin in xildhibaanka igu soo qoray dadkii bulshadii reer Jubbaland arrintaa waxay u qaateen inaan arrin aan ka mid ahay baleenka ku jiray halkaan inaan ka cadeeyo rabaa inaan arrintaa ber ka ahay oonan ku jirin oo waxba kala soconin oo aan gurigeyga ciyaaladeeda u qaraabto oo xamaasho wax barbaleenka aan kala socdo ay si jirin dan amuura xil iyo amuura system aan galayna amuuraha reer Jubbaland ay leeyihiin oo baaxadda weyn aan ka galayo markii ay macnaha damaceeda iyo waqtigeeda ay noqoto laakiin amuuraha been abuurka ah oo hadda lagu soo sheegay laga soo siidaayay meediyaha in aan halkan waxaan rabaa inaan ka cadeeyo inaan ku jirin maadaama bulshada aan kula yahay magac weyn oo qiimo leh misaal weyn aan kula yahay kana soo jeedo beelaha halkan ay sheeg dago wax khilaafna iyo wax keeni karo burbur Soomaaliyeed ummadaas burburka ka soo daashay sodanka iyo hayayga ku soo jirtay xabadda ay ka dhax ka daga wax uu horseedayo dib in aan raali ka ahayn magacaygu waa Yaxya Maxamed Abshir waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii nimankii musharaxiinta ahaa ee u tartamayay kursiga baarlamaanka ee Jubbaland lagana guuleystay waraaqo aan ku arkay baraha bulshada ama social media ay bulshadu isticmaasho waraaqo ay soo saarteen niman guddi isbedel isku sheegay oo macnaha meel xagga ka dhistay waxaa ku jiray waraaqahaas ay socialka ay ku soo daadiyeen magacayga oo saddexan waxaan rabaa markaa inaan beeniyo oo barnaamijkaas sal iraad aan ku lahayn weligeena aan arkin lana wareysan sheekana aan wada yeelan anigu waxaan ahaa musharaxiintii tartamisay kursiga baarlamaanka u tartamisay dad badan ma ku tartamanay ilaa 9 qof aan ku tartamanay kursiganaga ma sha Allah gabadh ba ku guuleysatay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya walaashay Sahara Dable aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya maadaama uu califkeeda iyo nasiibkeeda uu noqday 9 qof ayadoo kaligeeda wali gabadhnaga jirtay ay kaga soo baxday aad baan ugu hambalyeynaya waxaan rabaa marka arrintan inaan si gaar ah uga hadlo social media lagu daadinayo ama dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Jubbaland raba in mustaqbalkooda siyaasiyeed lagu haleeyo anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah siyaasadda mustaqbalka leh ku sii dhex jira maamul xilal kale ka disan ka haya maamulka Jubbaland ilaa dhowr xilna hore nooga soo qabtay haddana xilban hayay ma ahaynin xil la'aan oo banaanka taagan ma ahayn laakiin kursiga waan u tartamay nin siyaasadda system iyo kale mustaqbal baan ahay in marka mowqifkaygii siyaasadeed ama mustaqbalkaygii la haleeyo oo la iga dhigo qof dhinac kale ah oo kala bedelan macna arrintaas waa arrin aad u xun waxaan farayaa dawladda Jubbaland iyo laamaha amniga dadkan wada qoran badankoodu waa dad aan war ka haynin barnaamijkan aniga oo ah Cabdiqaadir Axmed Yaxye oo lagu soo qoray xildhibaan aan war u haynin kadib waaga markuu bariyay saaka subaxii in aan dad ka maqlay waxaan cadeynayaa inaanan shaqo ku lahayn inaanan u warhayn meesha la iga soo qoray iyo meesha la igu soo qorayba saa darteed waxaan cadeynayaa inaanan shaqo ku lahayn marka qolyahan oo aniga ugu soo qorayna dee qolyo aqoon aan u leeyahayna ma aha haddaan aqoon u lahaan lahay maxkamad iyo meel walbaaba la tegi lahay nin iska xamaalato magaaladiisa ka xamaasho oo aan howlahan siyaasadeed iyo waxaan ku jirinaan ahay marka waxaan cadeynayaa in aanan shaqana ku lahayn xildhibaanna ahayn qolada ugu soo qoratayna iyaga ay ku shaqo leeyihiin haddaan garanayana aan la tegi lahay ilaa maxkamad